noo bilaaban doonaa casharkeena ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa inaynu kala barano environmentiga sida asalka qofka Illustrator saan jeclahay laga bilaabo dadku waxay soo maraan Adobe software badan leedahay sida Photoshop oo kale documentiga marka soo bixi doona ay kala duwan yihiin iyo toolska ma ahane formkan kore oo kale ma kala duwana hadda formkan oo kale hadaan wax ka sheegno waxa uu koreeyo waa menu bar wuxuu ka kooban yahay menu options kala duwan sida file edit object type waxa ku xiga areadan banaan waxa soo gali doona option bar oo ah documentiga marka la soo furo optionada uu yeelan doono sida colorka inaad ka bedeshid farti oo kale inaad halkaas ka bedeshid waxa kale oo ku sii xiga option kale oo saddexaad qaybta kale saddexaad waxay tahay qaybtan areadan waxa ku jira toolal aad iyo aad u fara badan aad iyo aad muhiim u ah toolashaas insha Allah ta'ala waxa la yiraahdaa areadan waxa la yiraahdaa toolbox insha Allah ta'ala waan ka faa'iideysan doonaa toolashaas intooda badan waxa ku xiga palette ama panels waa kuwana waa options far badan meeshan ku yaala waa la minimize gareyn karaa waa iska close gareyn kartaa meeshan ay expand uga sameyn kartaa panels waa kuwana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan isticmaalo doono waan sii socon doonaa casharkeena waxa ugu horeeya aan gali doonaa waxay noqon doonaan sidee documenti loo abuuray ereyada waxa loo yaqaan horta workspace area sidee documenti loo abuuraa file new ama control n wada jeedaa shortcut control n file new name waxa ugu horeeya documentigeena uu yeelan doono waa magaca for example waxaan ku qoranaa welcome to Illustrator waxaa kale waxaa jira waxyaabo loo yaqaan profile waa waxa uu noqon doono documentigaaga for example for printing purpose print waa markii waxyaabaha aad daabacaysid for commercial purpose waxyaabaha loo isticmaali doono ayaa print laga dhigi doonaa waxa ku xiga web waxyaabaha loo isticmaali doono web pageska waxa ku xiga devices oo ah for example waxyaabaha loo isticmaali doontid sida iPhone-ka iyo iPad-ka waxay noqon doonaan devices waxa ku xiga video and film waxyaabaha oo isticmaali doontid anaga waxaan iska qaadanaa commercial purpose boorna daawaxno kale tusaale inaynu looga sameyno in sawir sameyno for printing purpose aan leenahay artboard number of artboards marka meeshan ka hadlayno Illustrator name-ka magaca Illustrator-ka ee loo yaqaan page waa magaca Illustrator-ka uu yaqaan page waxa la yiraahdaa artboard-kana waxaan dooran karnaa different variables maximum artboards-ka uu yeelan karo Illustrator waa 99 ama farsamada dambe oo 100 hadii aad 500 gali ama 600 galisid wuxuu asaga automatically ku abuuri doonaa maximum point-ga oo ah 100 page ama 99 labadaas mid waa 99 ay tahay jeclahay waxa ku xiga hadda for example 6 ayaan iska dooranaynaa ama 5 oo kaleeto spacing meeshan waxaan ka soo booday areadan waxaa arrangement-iga qaab ku noqon doona hadda wada bedelan kara laakiin arrangement-iga automatically grid baro iska leedahay spacing waxaad rabtid waa spacing-kan waa area-da u dhaxayn doonta labada artboard labada page aad diyaarsatay 5 page aad diyaarsanay page kasta inta u dhaxayn doonta column by default si automatically hadda 5 page aan doornay wuxuu noogu dhigi doonaa 3 column hadaan sidoo ku doono 3 kore iyo 2 hoose and that means laba column laba kore laba hoose iyo hal xabo hoose 3 column saas noogu dhigi doonaa waad bedeli kartaa laba column aan sida ugu wanaagsan oo design loo isticmaalaa waxa ku xiga size-ki waxaan soo dooranaa print wuxuu yeelan karaa letter wuxuu noqon karaa legal wuxuu noqon karaa tablet wuxuu noqon karaa A4 warqada caadiga ah taqaan A4 A3 B5 iyo B4 waxa ku xiga size-ka waad bedeli kartaa size-ka letterka gadaal width-ka waa kana height-ka waa kana waxaan sidoo kale sii wadi doonaa units-ka waxay noqon karaan waa kuwana points waxa ku xiga pixels inches millimeters centimeters pixels anagu waxaan u directly u isticmaali doonaa centimeter waana mid aan tutorial-skana iyo casharadana ku sii wadi doono points 12 point ayaa wuxuu la mid yahay hal pixels halkii injina 6 pixelsna waxay la mid tahay hal inji 2 point
I'm sorry 25.4 inches waxay la mid tahay 1 millimeter 10 millimeter waxay la mid tahay 1 centimeter 0.04 centimeter waxay la mid tahay 1 pixel marka waxaynu anagu iska isticmaali doonaa centimeter letterkan meeshan waxaan ka dhigan doonaa A4 waayo hadii waa bedel kartaa waxay ku xiran tahay size wax walba for example hadda barashada kale marka daawxiis A4 meesha ayaa ka gelin doontaa ID card markii la daawacayo somehow cabirkiisu wuxuu iska hayaa malaynaa widthka wuxuu noqon doonaa 8.5 ama 9 height-kana wuxuu noqon doonaa 5.5 ama 5 waa adiga kugu xiran tahay dhow waxaad daabici doontid wuxuu noqon doono adiga la kugu xiran tahay widthka meesha ka bedelanta centimeter 5 ayaa loo dooran bleed area waa areada ay safgaraysanaysid ee documentigaaga oo kale markii la daawacayo documentiga intaan oo kale hadii uu leeyahay waxaas jirta areadan oo kale hadda qoraalka oo kale hadaad ka bilowdo the cornerka waxaan waa printer waa la daabici doonaa hadhow jarin imaana in la jaro marka la jarayo marka inta documentigaaga dhaawac ka keeri lahaa waxaa la iska samaystaa space areadan intaan oo kale areadan oo jeedaa meeshan muuska saaray areas kale ay iska samaystaa si dhow qofka hadii wax jaray area soo qalwaxto kale intaan kale ay ku timaato documentigaagu safe kuugu ahaado bleed area waa kan waxaad gelin kartaa waxay kala leedahay top bottom left iyo right so automatically soo kugu sii gelin doona bottom left top and bottom left iyo right 1 centimeter oo top haddaan doorto that means wuu yaqaanaa baalka caqli isticmaala oo ah kor haddaad 1 centimeter ka rabto geesahan 1 centimeter ka jira 1 centimeter wuu ka go'i doonaa A4 size-keeda oo 20 centimeter 21 waxaa ka go'i doonta widthka waxaa ka go'i doonta 1 centimeter left iyo 1 centimeter right that means 19 centimeters aad saas ku haysataa height-kana 29.7 oo ah hal xabo oo top iyo bottom laba xabo ka go'inayna 27.7 ayuu noqon doonaa orientationka waa qaabka uu noqon doono ma portrait oo A4 inay tahay kor u taaganto mise landscape oo inay jiifato marka portrait-kana hadda tijaabinayna insha Allah waxaan iska tijaabo documentiga si loo abuurayno ku baranayna waxaa jira option xiran markay ugu horeyso saas u xiran color mode-ka markii la daabacayo waxaa la sameeyaa waxaa loo doortaa CMYK waxyaabaha la daabacayo waxyaabaha oo loo isticmaalayo screen waxaa la isticmaalaa RGB waa waxyaabaha screen-ka I'm sorry wuxuu leeyahay the chosen color mode is different from color space defined by document profile document profile-ki oo aan soo doorano oo printigaha u diidaya RGB waxyaabaha screen-ka loo isticmaalaa CMYK-na waxyaabaha la daabacayo waxyaabaha screen-ka waxaa ka mid ah sawirka desktop ka dhigan doono sawir waxa u saf galaysan doonto loogada asameyn doonto screen dhow computer lagu isticmaali doona si aan ka hadaa karigtina color folxun oo ka siin doona raster effect resolution markayna ku hadlayno waxaa jira waxyaabo laga xiriiro resolution oo ah afar nooc resolution jirta markii aan ku hadlayno Photoshop-ka ama Adobe oo kaleeto afartan nooc waxay kala yihiin 72 oo ah wixii 1 centimeter 1 meter ka weyn oo kala daabaca 72 waxa la iska qaataa pixels advanced tab-ka meeshaan ka xir kartaa kana furi kartaa advanced-ka CMYK-na waa in waad ka hubinaysaa high pixel okay marka waxaan rajaynaynaa in loo daabaco number of waxaan tijaabinaynaa hadda uu ahaan bleed area waa area aan safe ka ahayd aan ku badbaadinayno documentigeena si jarin u gaar waan tustoonaa hadda okay ujeedaa laba column oo loo sameeyay 1 iyo 2 bleed area-na waa area-da guduudka sida aad u jeedid haddii aad rabtid waxaa jira shortcut la isticmaalo haddii aan rabo dhammaan pages-kayga ama artboards-kayga inaan arko waxaan leeyahay alt control 0 dhammaan artboards-kayga ayuu tusi doonaa haddii aan hal artboard rabo kaligaan leeyahay calaamada madow waa fulan soo jeeda midda koowaad hadda ii dooran control 0 ayaan leeyahay si oo fit iga dhigo kaligeed ii leekaysiiyo shaashada bleed area waa areadan ii bannaan
areas dhow meel cad ay noqon doontaa documentigan waxaan ka bilaabi doonaa geesaha geeskan haddaan rabo ilaa geeskaas kale areadan bannaan dhow meel cad ay noqon doontaa waana la jari doonaa waa areadii jareenkii ku kaa badbaadinaysay waxay noqon doontaa meel cad alt control 0 dhammaan artboardiskaygii oo kuwaana markii aan rabo inaan artboard cusub sideen artboard kaleeto ugu darsan karaa artboardyadeeda intaana intaas u gudbin balletka waxaa ku jira artboardiska meel laga maamulo layers waa meeshan layerski artboardisna waa labadaas fallaar ee saaran ee midda hoose labada rectangle oo artboardis artboard 1 artboard 2 3 4 iyo 5 shan artboard okay if I need alt control 0 haddii aan u baahanahay inaan sameeyo new artboard inaan kusoo daro waxaan qaadan karaa inaan tago meeshan artboardiska aan iraahdo new artboard oo ujeedaa sidaan jeclahay new artboard click artboard 6 oo hadda igu daray laakiin waxa uu dhigi doonaa areada dhinaca midig ay uga dari doonaa haddii aad rabtid inaad maamushid aduu meeshaa dhigan lahaydna waa samayn kartaa way kale saddex way jira lagu soo daro midda ka hadda oo artboardiska inta tagtid new layer tira new artboard daadid ama aad soo qaadatid toolkaas artboard toolka soo jeedid waa toolkaas rectangle square ka artboard tool shift o toolkaas click siinaysa marka artboardka ku dooran ayuu dooran doonaa markuu sidaas u doorto kor waxaa ka muuqata qaabkii uu dhigmi lahaa barasadkiisa oo A4 ah inuu yahay warqad ku dooran portrait landscape ama new artboard ay click siinaysaa wuxuu kuugu dari doonaa artboard cusub artboardkaas wuxuu ku dari doonaa kadib fallaarta soo jiidaysa artboardka meesha ugu talagashay inaad dhigtid intersect halkaas kala dhigaysa ama meeshan ayaa dhigaysa artboardkan kasaan dhiganayna artboardka saasna waygaasna wuu kor loogu soo dari karo waxaa jira way kale oo saddexaad oo ah ina artboardka dooratid artboard toolka aad soo qaadatid aad click siisid artboard mid kamid ah artboardyada kadibna aad soo move garay alt qabanaysa koobiga markuu calaamada koobiga labada flares fuusho ay soo baxdo ayaad hoos soo jiidaysaa shift ya qabanaysa si uu si directly smoothly ah ugu jiido hoos waad soo jeedo si directly uu ku jiido again hadana directly si koobiyaysid shiftgana waad qabanaysaa waa si oo isla ag ay kugu jiidi doonaa so nice and this is marka waa bleed area iyo marka noo sameeyay haddii aan rabno anagu inaan bleed area noo gooniyo sameysano control n ayaan leeyahay shan pages ka ahaato bleed areadan 0 ayaan ka dhigayaa waxaana wanaagsan in adoo gacantaada ku samaysatid tusaale ahaan hadda dhammaan wuxuu noo sameeyey shan artboard oo kale shan artboard si automatic noo abuuran anaga soo abuuranay haddii rabo bleed inaan abuuro waxaan ku abuuri karaa waxaan saaraa meeshaas guide ayaa halkan sidaas ugu wareejinaya guidekaas oo ah guide kasta u samaysid hadda artboardkan koowaad oo kale noo dooran control 0 waa soo dhaweysanaynaa waxaan soo qaadanaynaa shape ku qoran tahay rectangle toolkaas ayaan soo qaadanaynaa shapeka dhexdiisa kali ku siinaysaa wuxuu kuu keenayaa sizekan markuu kuu keeno shapekeegan sizekiisa wuxuu ahaa ama artboardkan sizekiisa wuxuu ahaa widthkiisa wuxuu ahaa 29.7 waxaan ka jirayaa 1 centimeter 28.7 no widthka ma waa heightka kaas warqad waa portrait widthka wuxuu ahaa 22 halan ka jira 20 centimeter heightkana waxaan ka dhigayaa waxaan ka jirayaa 28.7 I'm sorry عربي أنا صفولي shift alt 28.7 okay and that means 1 centimeter 0.5 نقول كسر علينا جيس كان 0.5 نجيس كان انتنا 0.5 انتنا 0.5 and okay and shape halkaas u dhigay waxaan tagayaa marka shape waxaan soo qaadanayaa move tool ama selection toolka shape markuu doormo waxaan tagaa align oo ah iyo align garee align objectiveska waxaa ka dooranaysaa horizontal align center ko again hadana waxaa dooranaysaa vertical align center si uu u dhex dhigo shapekeena artboardkeena shapeka okay I'm sorry
selection u baahan yahay waa noo dooran yahay align center artboardka noo doornayn afwan artboardka sidaas u dooro kadib dheh align horizontal vertical align. I'm sorry ciladii haysata waan soo helay align markaad tiraahid waxaa hoostaas ka fiirinaysaa align to maxaad la sameysaa selection ayaa naga saaran waan ka qaadanaa waxaan dhigaynaa align to artboard. That means markaas waxaan leenahay labadii step wadito aan mari lahayn horizontal align center wuxuu la simaa centerka wuxuu geynaa centerka dan waxaa leedahay vertical align center wuxuu si directly oo la simay artboardkeeni soo dhaweynayna control 0 wuxuu la simay artboardkeeni 0.5 wuxuu kasoo gooyay geeskan 0.5 na geeskan 0.5 na kor 0.5 na hoos. That means 1 cm kan 1 cm labada dhinac oo kala qaybiyay markaad ku align gareysid aad waxaa leedahay right click make guides right click I'm sorry right click make guides waxaa leedahay right click make guides selectionkii ku doornaa waxaa leedahay make guides selection markaas waa ka guurina artboard kala dooranayna waxaad u jeedaa wuxuu ku sameeyay guide ama guide kaas uu ku sameeyay marka guide kan waxaan rabaa hadii aad rabtid inaad log gareysid ama right click aad kartaa log guide ama control 2 oo ah shortcut kiisa. That means lama move gareyn karo art guide kaaga. So marka waxaan rabnaa halkan guide in aan ku fit gareyna ama aan ku la ekaysiino ama aan ku shubno dhammaan halkan guide sameysane dhammaan inta kaleeto guide-ka waa tagaysaa hadda log aan control 2 waa ka qaadaysaa I'm sorry log ayaa hadda saarnay waa ka qaadaysaa guide-ka saas u dooranaysaa log ayaa saaran log waa ka qaadnaysaa jeclahay log markaan ka qaadno saas u dooranaysaa waxaad tagaysaa edit cut ayaa leedahay kadibna edit waad ku noqonaysaa opacity on all artboards waxaa shortcut ah alt shift control v dhammaan artboardskayga ku shub ama la ekaysi waxaad ku shubtaa halkii alignment halkii maxaa la yiraahdaa halkii guide aan samaystay wuxuu si automatically ugu shubay dhammaantood waad ujeedaa kan guide this one guide marka wax walba oo aad u baahan tahay inaad ku shubtid inaad wada dhigtid dhammaan artboardskaaga waxaad leedahay edit markaad soo cut dhahdid ama soo jirtid waxaad leedahay opacity on all artboards hadda dhammaan artboardskayga shantaha waxay leeyihiin mid kasta wuxuu leeyahay guide ama waxaan guide-kaas marka qoraalkayga waxaan ka bilaabi doonaa meesha xariiqinta ay ku ogtahay dhammaan haddii aan rabo inaan wada loo gareeyo sidaan ayaan leeyahay saasaan wada doorana direct selection kan selection toolkaas wuxuu leeyahay selection sidaasaa leedahay right click adoo left click haya ayaa soo move gareynaysa dhammaantood saa wada doorati ama control A ayaa leedahay saa wada doorati kadibna control M ka dhahay hal mar waxaa leedahay control 2 loo garee markii loo garee hadhow lama move gareyn karo sidaad arkaysid control 0 hadda tusaale ahaan midaan oo kale ma move gareyn karto waxba kama qaadi karto guide-kaas guide inay tahay ku xadan laakiin wax kale oo ku awoodo ma lahan intaasaan kusoo gabagabeynaa casharkeena qaybtiisa koowaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.